waftigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa maanta wuxuu kormeer indho-indhana ku soo maray deegaanada Bacaha Baadi Qariye iyo Dogoble ee dhawaan dirirtu ku dhaxmartay laba beelood oo kamid ah beelaha deegaanada degmada Ceelaf Weyn. Kormeerkan oo wasiirku ugu kuurgelayay isla markaana uu ku lafagurayay xaaladda dhabta ah ee nabadeed ee ka jirta deegaanadaasi. Safar socdaalkan oo ay ku heliyaan wasiirka amniga gudaha Soomaaliland xubno wasiir ah oo hore ugu sugnaa degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag, gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka oo dhamaantood u yimid ka qayb qaadashada dhexdhexaadinta ama heshiisiinta labadaas beelood ee dirirtu dhaxmartay. Ugu horreyn waxa tafaasiil ka siiyay deegaanadan dirirtu ka dhacday wasiirka amniga gudaha Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay, iyo inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ay sababeen dagaalada naf iyo maalba. wasiirka saacada wasaaradda halka uu joognaa waa bixii waa meeshii ugu horeysay ee bil iyo bad laba bilood ku dhawaad fidmadii hore ay ka dhacday ugu horeysay saddexda nin ay ku dhibatay tirada kale dooriga ay ku dhaawacmeen waa halka lafteeda weey oo tagi doona goobta ay halka magaaladii halka waaba ay ka dhigteen bacaha iyo meelaha biyo ay ka cabayaan way ugu dhow yihiin waashani waxa weeye intooda badan waa uqaashi reerka baha la yiraahdo baha waa deegaanka meesha imka mushkilada koowaad ka dhacday saacada wasaaradda waxa weeye halkani wasiirada kale hore u yimaadeen iyo ciidamaduba marka adigoo ah wasiirka arrimaha gudaha ayaan arintan doonayna maanta inaan ku sheegay bixi tahay marka insha Allah wasiir waxa weeye 8 xubnood baa ku dhintay oo uu mid yahay maxaan ku yiraahdaa ciidanka qaranka markii aan u nimi saadiguba ilaahay hadlaysan lahayn rasaasti baa socotay war ma ku dhacday waxa weeye ciidankana waa ciidankii qoriya qabsaday abka aniguna waa leesdi gaariga wada aragtaa waxa rasaas ku yaala aad iyo aad baan runtii ciidanka qaranka ugu mahadcelinayaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waa dhab waa 8 xubnood ayaa halkan ku dhintay oo shacabka ah labada darafa iyo askariga ciidanka qaranka ah ciidamada halka jooga iyo inta kale halka ku soo marteen iyo kuwaanu geynay Ceelaf Weyn iyo Darweyne dhamaantoodba waxa weeye waxay leeyihiin ilaahay baa horta ku abaal marinaya wasiir si u dadaaleen ciidankani waxa ka kala yimaadeen labadan guuto midna waxay ka yimaadeen xudur midna waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Yagoori sida awgeed waa ciidan aad iyo aad u dadaalay waad maqlayso adigu mar qora kama dhaxbixin run ahaantii sida ay wax ahaayeen mid bad nolosha hadlaysay sida awgeed meeshani waa Dogoblena insha Allah faafayntiisa waad heli doontaa saacada wasiir halkani waa ceelka Dogoble waa ceelka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ugu manaystay ee aan go'aynin ee durdurka iska ah hadii ay dhaafaan hadii lagu xiro 6 mishiin ama 10 bishiid inta dhaafi maayo biyuna yaraan maayaan halka wada aragtaan naaniyaha ama kaalmaha waa intii geelu ka cabayaan dhaadheer waxa waraabiya iminka oo ciidanka yaani qaranka ayaa waraabiya isla markaana shidaalka iyaga bixiya geelay kala horaan hadii ay markaa cid kale yaani ay joogaana way caawiyaan iyagu ba had iyo jeer maatooyin baa wada ama rag aan qoriyaysan looma ogolo ciidanku uma ogolaan nin kaliya oo terrorisita hub kala daayo sida awgeed intii iminka ay halka kan ciidanku joogay xooluhu saasi u cabayaan mar walba booyadu waa kuwa soo way qaadayaan biyahi waa meel Ilaahay uu nibceeyay hadii ay ku nimcada Ilaahay ku mahadnaq lahaayeen wax waliba jannay u noqon lahayd la shakirtum la aziidannakum wala in kafartum min adaabi la shadiid ba Allah subhanahu wa ta'ala nimcada alle yaani ma ahal karo kale dood caraalaha lagu sheegaya waa marso tog ah oo hoose oo biyahaas ay meel la faadhaaba ay ku jireen hasi kala bataani saacada wasaaradda qorani waxa weeye qolay Saacad Yunis odayaashii halka ka joogay waana deesto horaan idin ka warbixiyay halka tahay meeshii shaqaqada ugu weyn ee ballaaran ay ka dhacday oo ah Dogoble insha Allah waxaan rajaynayaa inay de khayr ugu soo gabagabay doonto odayaasha ku soo waa odayaasha kala shaqeeya ciidanka nabadgelyada iyo aqoonta dadka iyo ka kharibanka warbixintiisa weeye aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ku amaanay labadaas beelood ee dirirtu dhaxmartay sida ay u ilaaliyeen nabadda iyo amniga wixii hore ee dhacay mooyee.
wuxuu kaloo kula dardaarmay wasiirku labadaas beelood in ay nabadda iyo amniga ilaaliyaan inta xal sugan laga gaadhayo arrimaha keenay dagaaladan gacanka hadalka ah ee sababay khasaaraha isugu jira naf iyo maal. sidoo kale wuxuu wasiirku ammaan ballaaran u soo jeediyey ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland ee ku sugan goobahaasi sida halkornimada leh ee ay u guteen xilkooda qaran una kala dhex galeen labadaas beelood. diyaatiin cuqaasha iyo odayaasha iyo garboodka deegaanka dadaalkan aad u gasheen inaad fidnada iyo dhibaatooyinka iyo wixii dhacay aad halkoodii ku ekaysaan oo isor taagtaan aad iyo aad baanu idinku bogaadinaynaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waa kaalin aad lahaydeen waa xil ina wada saaran dadaalka aad ka soo gasheen ee aad u timaadeen si aad arrimaha u xakamaysaan waa kaalin aad lahaydeen waana ku mahadsantihiin aad iyo aad idinku bogaadinayaa sida geesinimo leh ee sharafta leh ee wadaninimada leh ee aad dadkiinnii dhibaatooyinka iyo shaqaaqooyinku dhex mareen aad ugu soo gurmateen ee noloshaa adag iyo meesha aynu arkayno iyo bagcaddaa aad ugu dulqaadanaysaan ee diyaar ugu tihiin inaad badbaadisaan arrin waajib inagu wada ahayd bay ahayd oo kulligeen ilaahayna ajarkeeda uu ina siin doono dadkeenni baynu kala badbaadinaynaa shaqaaqooyinka iyo waxyaalaha mataqaanaa aynu ognahay inay dhex yaallin baynu bogsiinaynaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dowladdiina way og tahay aad baa loola socdaa xaaladda halka taagan wasiiraday kale iyo dowladduna wixii intayada halka joogta maaha intii kale inta badan waa soo socotaa waa nagu soo biirayaan waxaa loo wada imaanayaa in arrintaa gacan adag lagu wada qabto oo si dowladnimada looga wada shaqeeyo idinkaana u afdala aad iyo aad baanu idinku ammaanaynaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka ballan qaaday in ay dhinacooda ilaalin doonaan nabadgelyada iyo amniga odayaasha iyo cuqaasha labadaas beelood ee dirirtu dhex martay. waxba hadda kuma kala qarsoona malasiyaad baa iska jira dadkii gabadha jira waxaasoo dhan waa dhuxul aanu gacanta ku hayno gamaha inaanu mar walba juhdiga gelino inaanu mar walba ilaalino inaanu saacad walba la socono xaaladda de waa muqaddis waayo sababtahay waxa weeye xukuumadda waxaanu kala qaadanay intii tabartayada inaan adkayno nabadda inaanu ilaalino xukuumadduna ay waajibkeeda qabsato. horta marka hore salaanta islaamkaanu idinku salaamayna wasiir adiga iyo waftigaaga ballaaran aad hogaaminayso mar labaadna waxaanu mahadnaq u sii jeedinaynaa u mahadnaqaynaa ciidanka qalabka sida ciidamada nabadgelyada sida fiican ee ay noola howlgaleen ama se beeraha iyaga halka kan shaydaanku isku shaqeeyo walaalaha ay u kala qabteen alaankaana ugu heegayihiin had iyo habeenba annaguna diyaar waxaanu ugu nahay iyaga iyo wasiirka dowladda iyo shacab wax alla wixii noo yimaadaba nabadgelyada halkaasay noo taallaa goboshaanu u dhignay wixii horena waa isku qoomamaynaa wax dambena waa ka feeyigaanaynaa cid kasta oo nabadda danaysana sacaba furan baan ku soo dhaweynaynaa. gabagabadiisa oo kormeerkiisa sii wata wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha Somaliland wuxuu isu soo dul istaagay ceelka dhuxulaalay oo ku yaala deegaanka Dogoble ee hore loo awday isla markaana wuxuu ka dhawaajiyay in ay ka xukuumad ahaan dhawaan ka soo saari doonaan awaamiir iyo go'aamo ceelashaas iyo deegaanada kale ee la isku qabtay isla markaana dagaalku ka qarxay. Axmed Mursal, TV-ga Caalamiga Universal, Ceelaf Weyn.